Soomaaliya ma ahan qariirad, ma ahan calan, ma ahan magac wararka lagu ceebeeyo. Soomaaliya waa ballan dhiig lagu qoray, ballan rag badan u dhinteen si dadkoodu u noolaado, balse yaa xasuusta ballantaas. Soomaaliya waxay ahayd dal aan dadkiisu isweydiin qabiilkee baa tahay. Soomaaliya waxay ahayd dal aan muwaadiniintiisu aysan u baahnayn ciidan shisheeye si ay u dareemaan amni. Soomaaliya waxay ahayd dal riyadu ay ka weyn tahay cabsida. Soomaaliya waxay ahayd dal mustaqbalku uu ka horeeyo baahida. Soomaaliya waxay ahayd dal hogaamiintiisu ay u dhintaan danaha shacabkooda oo aysan ku ta'jirin jagada loo dhiibay. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu rajada badnaa ee Afrika. Soomaaliya waxay ahayd dalkii jabiyey libaaxa Afrika ee Itoobiya. Soomaaliya waxay ahayd dal dadku ay ku walaaloobaan Soomaalinimada oo aysan isku dilin qabyaalad iyo nacayb. Soomaaliya waxay ahayd dalkii hogaaminayay warshadaha dawladda. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ku guuleystay abaalmarinta UNESCO ee aqoonta. Soomaaliya waxay ahayd dal dhiirigeliya muwaadiniintiisa riyadooda. Soomaaliya waxay ahayd dal dhalinyaradiisu ay aaminsan yihiin in beri ay ka fiican tahay maanta. Soomaaliya waxay ahayd dalkii uu ku dhashay Cabdibile Cabdi orodyahankii caalamiga ahaa. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ay ku dhalatay Aslax Xasan haweeneydii ugu horreysay ee noqotay baylood. Soomaaliya waxay ahayd waddan magac leh. Soomaaliya waxay ahayd waddan miisaan leh. Soomaaliya waxay ahayd waddan cod leh. Kadibna codkii waa la yareeyey, go'aankii waxaa loo raray meel kale, hamigii waxaa lagu bedelay gargaar, hogaamintiina waxaa loo bedelay iskaa wax u qabso, hana u adeegin ummadda. Dadkii wada jirayna waxay noqdeen qaybo la kala iibsado. Dabadeedna qabiil baa noqday hub, diin baa loo isticmaalay marin habaabin, dhalin baa cudud lagu beeray. Carruurtii Soomaaliyeedna waxaa la baray cidda ay necab yihiin ka hor inta aan la barin cidda ay yihiin. Haddiise qaran luqunta la gooyo, dadkiisu wuu marin habaabaa. qaransi aan isku tashi lahayn laguma dhiso deeq, bulshase kala shaki qabta laguma mideeyo calan. haddiise Soomaaliya isqiimeyn wayso cidna qiimeyn mayso. Soomaaliya ma sugayso hogaamiye mucjiso leh. Soomaaliya waxay sugaysaa muwaadin xasuusta in xorriyaddu ay tahay doorasho maalinle ah. adigu sadaawade waxaa xasuusataa Soomaaliyada ka timid mise midda lagu sheegay.